قبيل كم قبيلة الصومالية قبيل كورسنجلي ما حد كتقنا هو قبيل صومالي سي قبيلة الصومالية كلمة حكوا كدوي ورسنجلي ورسنجلي كل دورة بدنا ولا يا كل دورة بدنا ولا كنت غراب دي حاجة حمر يوم جامع يكون ولا قبل بيتك ورسنجلي والله دي حمر بيتك ما ما يقول ودون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسكرتكارتو مقالة برعا كسكن ددوينها مقالة برعا waxaan weydiinay su'aal qabiilka Warsangeli ee Soomaaliyeed maxay ka aaminsan waa qabiil sidee hadaba su'aalihii ugu qosolka badnaa ayaan idin haynaa daawasho wanaagsan Warsangeli waa Umar iyo Jubays garta waa jamac adiyaad waa dad aqoon leh oo wax garad leh oo raga adiyaad 7 sano la shaqeynayaan 7 sano ha adiyaad warshada asqore ibaan haanugu adiyaad ragii ka shaqeynay adiyaad 7 sano fadhi adiyaad waa rag waxna gala waxna guda adiyaad ya adiyaad cidna sharafna leh adiyaad dagaalka bari ka soconayana burbaanta ku raaci maayaan nugaal ku raaci maayaan waa rag ismaamuli kara adiyaad gawahay way su'aashan ku weydiinaya maxay kaga duwan yihiin qabiilada kale Soomaaliyeed intaad la joogtad ku aragtay ya qabiilada kale Soomaaliyeed maxay kaga duwan yihiin waxay kaga duwan yihiin nimankan waa nimankii boqortooyada la maxay maxamuud cali shireel ahaa reer cali shireel ahaa bari ba xukumi jiray waa niman dhisan oo la yaqaan oo meel ku sugan maxamuud cali shireel ka dhishay ninkii sheer ka keeni jiray ciidanka waa niman cidna u baahnayn iskaafiina kala cidna kaafiin kara cidna aan raaci karin loola sheekayn dad badan imise magaalad oo Warsangeli dago ayaad adigu tagtaad arag malyan baan aqaan asqoray baan aqaan dhahan baan aqaan xingalool baan aqaan buraan baan aqaan ad baad inaad u mahadsan ayaan aqaan ad baad u mahadsantaynaa qabiilka Warsangeli ee Soomaaliyeed ma taqaanase waa dad nooc maxaad ka sheegi kartaa maarag mid kama sheegi karo wax yihiin ma aqaan ma aqaan ninka inta leeg baa Warsangeli wax ka garan qof ina qof baan ku arko mooyaane laakiin Warsangeli Warsangeli ama afar qof Warsangeli meel fadhiyo ama arag ما قب مeel taaga waarka soo yaaka muxuu ee suurada binaada ku ilaalaha markaan arkay adiya way Warsangeli waa marka waad maqashay adigu aan waan maqlay adiya qabiilka Warsangeli maxaad ka taqaanaa waa dad sidee u eeg maxaad ka maqashay maxay kaga duwan Soomaalida kale Soomaalida waxay kaga duwan waxyaabo badan adiya horta waa dad xadaarad loo wax bartay xaga kale dhaliishada inaga ku talax tagin adiya ka maqashay waxaan ka maqlaa inay dad xuleystaa yihiin inay yihiin dad iska dayaro oo ku nool dadaalka iyo waxyaabaha la qodob garanaysa oo xagga siyaasadda ka liita oo xagga dagaalka ku liita oo bilaa xadaarada oo bilaa waxbarasho de xagga horta waan ka aaminsana dhanka positive-ka u kaalay hadaba u kaalay sandaladii ugu horreysay Soomaaliba yeelato horta iyada lahayd waa talabaade dhul qaniya oo aan Soomaaliba lahayn ba kaligood leeyihiin oo maxay marka waanu tusay ilaahay maxay hadday bad leeyihiin oo buurada leeyihiin oo macdintii leeyihiin oo leeyihiin baasha meelkooda leeyihiin deer ma dhulka Soomaaliya inta ay baa jirta marka waxaan leeyahay nimanka Warsangeli neew bal waxbarashadan dhuxushan aad wadaan bal xaggan kale aqoonta iyo siyaasadda iyo waxbarashada iyo kaabayaasha nolosha la jaan qaada sida dadka bini'aadamka oo kale oo sidii bini'aadamka u noolaa warda rishiina culay baa ugu xadaarisan wax adigu balnafar adigu waa kane waliba tusaale ahaan imika waxay ka mid yihiin meesha leeyahay baashi Puntland bay ka mid yihiin halkan bay ka mid yihiin labadaba waa lagu yeestaa labadana waxay leeyihiin annagaa dhisnay waxna kama aha de marka waa taa dhalinyarada maalin walba lagu dhex laynayo baraha bulshada kama hadli karayaan war de channelkii taariikhda Warsangeli maqashay nimanka channelkaas wax u dhiman sidii de nimanka Warsangeli ku taageeri maayo intaas ma ka guursaday farid qof Warsangeli wariya saddexna Warsangeli waa socda ama qof Warsangeli ma saragtay wallahi inaan waxaan haynaana arag laba wada socdaata horta waxa lagu duulku dumar beelay هذا ما قرأت. اللي ما كان بعيد أي شيء كي يبري وديالين. بركار دولك دمر بيري. عاقل يسرادين ولا لا؟ ورسرادين ولا لا؟ سيد علي شيخ حسين شيخ حسن كلمية. سيد علي ونادر كنت ورسني سؤال بنكو دينا قبيلك ورسنجلي هذا ما عرفتي تد مكروك لانتي
maxaad ka taqaanaa waaba islaayigii oo hadda ku yimiba libaax meesha lagu xanto u yimaadaa ninka waa nin warsangeliya oo burco dhex jooga soo dhawow bal dad badan baa isweydiinaya warsangeli waa reer noocee bal adigii baa ahay warsangeligii qofa ayaan hadda la jooga maxaad noo sheeg xaaladaha noocaas waxyaabahan isku matelnan waxaa ka mid a arrimaha jeceshiinna idin dhaamin karno idinkana nusqaamin karno waxyaabo walba oo aad iska dhigtaan oo iska dhigi karnaa waa isla warsangeligii libaax meesha lagu xantana wuu yimaadaa libaax meesha lagu xanta wuu yimaadaa way aduu nin warsangeli yaad ka tahay warsangeli burcaan ka nahay heer burcadaan ka nahay heer hargeysan oo ka nahay berbera way warsangeli yaad ka sitay laakiin waxaan ka sinnahay kobolaaye halkay degaan jaamalaaye degaan oo gobolkeeya markaa oo ka kac meesha agteeda waaye ka kac meesha agteeda waaya warsangeli badan baa ku daawaya fariinta u diraysaa maxay waxaan leenahay salaamtiina sabanada noo soo basay sida kaleeto jeclaydeen way burcaan ka salaamay burcaan ka salaamayna annagoo indha baqaaqsan maxaad kaga duwantihiin soomaalida kale waa badannahay kubi habaarana ducay noo noqotaa habaarkaan ku badannaa haddaanaa warsangeli dhulmaanta waayo inaadan aad baad qabiil ka mid a qabiilada soomaaliyeed qabiilka warsangeli maxaad ka taqaanaa waa qabiil soomaali si qabiilada soomaalida kale muxuu kaga duwan yahay warsangeliya maxaad ka maqashay warsangeli warsangeli kii degi jira mudan xawar yanta ka sheesh waa qabiil nooceeda marka maxaad ka maqashay qabiilkaas taniyo qabiilka waxa ka maqlay qabiilkaas qabiil nooceedu malanaysa wadad sidee warsangeli warsangeli ku dooraa badnaa malayna ku dooraa badnaa adiga ali xagge ku nool marka gobolada xagga xamar iyo majaamay ku nool gobol bay degaan warsangeli wallahi xamar bay degaan ma malayo gobolada u dhow ay magaalo weyn ay degaan si maxay kaga duwan yihiin dadka warsangeli waa dad saawaag ma casaan baa madooba teena dadka Soomaaliya weeyay ma wax kala wax kala kaga duwan dad way saas oo dhanaysa qabiilka Soomaaliyeed ee warsangeli ma taqaanaa si ma baqtay waa sidad nooc si fiican ma loo qaana ka sheekay way waa dad jiro Soomaaliyeed oo Soomaaliland la saamay kule Puntland la saamay kule degmooyin badan oo dalka kamid ah gobolada badan oo dalka kamid ah ka diga waa dad soo eegay maxay kaga duwan dadka kama duwana bilaadanka kama duwana waa la mid marka Puntland la way degaan Soomaaliland la way degaan boosaas ay degaan garacad bay degaan xaafuun bay degaan meesha la yiraahdo qardhay degaan hadaaftimay degaan hadaaftimay degaan baran bay degaan yub bay degaan waa door qof oo warsangeli meel jooga ma wada aragtay si ma la qayisay jidin ma la cunto jid ma la mar in badan boosaas la joogay xaafuun baa la joogay garacad baa la joogay meesha la laasqoray baa la joogay baran kugu hayay marka halka marka inta waxa ay wada ganacsi baan hayno wada shaqaysan jiray waxa jirta waqti badan iyaga u shaqayn jiray way maxay kaga duwan qabiilada kale Soomaaliyeed marka soo aruursan waxay kaga bedelan yihiin boqolkiiba 95 waa ganacsi way ganacsato marka qabiilada Soomaaliyeed si geed weey saaxiibada ahaydeen iyo inay ku daawanayaan baa dhigta boosaas ku maxaad farinta u diraysaa maxay warsangeliga aad si warsangeli wax dhibaato ay wadaan hadda fariin uga darar garan maayo marka waxa weeyaan dawlad ka soo joogaan waa nimanka aan yeelin Soomaali kaga duwan degmo tuula ay leeyahay dagaal ka dhicin laakiin ay ku farsameeyaan wada hadal iyo wada xaajood wax kasta soo wajaha wala ka sameeyay dawladda ay gobolka ay leeyihiin in laba dawladood ka taliso sida aan qabiilada Soomaaliyeed kala fikirin oo hadda baran Soomaaliland ba ka talisa hadda inta qulqulada dhicin Puntland way ka talin jirtay hadaaftima tabtaasay ahayd laas qoray tabtaasay ahayd yuba caynkaasuu ahaa tuulada kale ku hoos iyo hadda tabtaasay ahayd way inaad aad baad inaad qabiilka warsangeli Soomaaliyeed maxaad ka taqaan qabiilka Soomaaliyeed ee warsangeli anigu waxba kama aqaan waxba kama taqaan ma arag qof warsangeli iyo meel maray waa maqlaan waad maqashay sababta leerkooda maxay tahay way waxaan u arki waayay aan dhaafin miya marka burcaan dhaafin isku deegaanna ma nihin waa dad soo waagay taniyo wallahi eegaantood nin halka taagan baan arkayay oo qara weyn oo marka waa dad qara weyn kole saan ku maqlay kole saan ku maqlay way ka soo dhaw marka wad magaca soo dhaw way aad isma ducalo burcaan joognaa iskirkaarta kuuraysanaya warsangeli ma taqaana bal way dad badan baa isweydiinay wax soo waagay ma maqashay jidin ma la martay jid say weegishay warsangeligu waa dad bidaadan oo Ilaahay abuurtay adigoo kala wax dheeraad ma wataan waa qaran meel yar maxay kaga duwan Soomaalida kale marka dad faar aagto abaad ilaabti iyo dad badan baad leeyahay maxaad ku cadeynaysaa marka annaga cadeyn oo dhex marayno halkaad martay halkaad imsan deegaan ay leeyihiin bad martay dhul badan waxa tahay badan
واحد تجي باشا إيران سنجلول دهر بالبوسلة وتقاس أولم يلا يلا صغري عمر يا بلال ما بس هو كذا meelaha badan aad bartay maxaad ku soo aragtay والله ده واحد اللي يقوم الله عارك hay aad caan ugu yihiin kuwa reerkaas marka deegaan ahaan aad saaw yara eegtay يا أبغى قطان وش شيء شتان وتذكر عسكر وتذكر أبدا والله والسنجري دي والله يقانا وقبيل عانه ويا مركا سيدكم دي وكيلها sayidku muxuu lahaa سيدك ما هنا قموتها قموت وحي وحي قموتها وكيلها وحي اللهم صل على سيدنا وحي ورسنجري بيور باكوتيل وانا بقى انا مركي بارقفكي laga xiray ayaa baarankood dumay Umar iyo barbaartii dibes baqada sabanka sidii binjiga lagu wada baxarka loo jiiday baarintii sabaa shaqay bahas ku raacaa ninkaas waa dhul baahanta ay u heelin waayay muxuu uga jeedo marka balgabiga dad badan suugaanta aad sheegtay ee gamuuto sheegay muxuu uga jeedo de wuxuu uga jeedaa ingiriiskiiba ayaa wadanka marka ayaa ingiriisku la dagaalamayay de gamuuti marka ingiriiski waa xidhay de ugaaska warsangeriga de warku marka waa saas